socodkana socdana magaalada ayaan guri ka doonanayaa kaygan ku jirayna waan ka baxayaa dhibaatada hooyo daadka awgeed ayaan uga baxayaa dicina waxba ka qaban weyday magaalada Hargeysa ayaa u muuqata mid kala xidhan xilliyada roobka isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga ayaa yaraada xaafadaha qaarkood xilliyada roobka waxaana sababa dooxyada dhex mara magaalada iyo bridge-yada oo ah kuwa yar isla markaasina aan ku filnayn gaadiidka iyo dadkaba haddaba warbixintani waxaanu ku eegaynaa dhibaatada ay keenaan dooxyada xilliyada roobka dadka degan dooxa qaybtiisa kale ayaa sheegay in ay gebi ahaanba ka guurayaan guryihii ay hantida u lahaayeen sababo la xidhiidha xilliyada ay biyuhu marayaan dooxyada sida ay sheegtay hooyadani oo ku dhaqan qaar ka mid ah xaafadaha ay dhex maraan dooxyadaasi oo sheegtay in ayadu gebi ahaanba ka guurayso guriga ay deganayd shalay anaga iskuulkii nimadii way naga joogan markuu roobku daayay duxdu markay soo rogmatay qaar baa nuuradeen dhigta qaar baa kuweydiga dhigta shalay waan joojiyo waxaan ku dhigaa tagina iskuulkii inba ka socodkana socdana magaalada ayaan guri ka doonanayaa kaygan ku jirayna waan ka baxayaa dhibaatada hooyo daadka awgeed ayaan uga baxayaa dicina waxba ka qaban weyday ma garanaysaa markaa hooyo waxaan rabaa inaan dee guri raadsado inankayga laba inanoo dhalay halkaasii shalay taagnaayeen markuu daadku soconayay war dub magaalada ku noqdo daadkaa soo gelina baan idhi miyaanay dhib ahayn gurigaan iminka aad ka guuraysaa waa gurigaad adigu hantida u lahayd oo guriga hantida u lahaa ka guuraya ka qaxaya sababahaad uga guuraysana maxaa ka mid sababahan hooyo uga guuraya waxaa ka mid ah baslaani wayna haysaa xaafadayda bas ma soo galaan waa qodobka koobaad talabaad dee hooyo dadweyne dhalo halkaa degan oo aan maanta dicdaasi hadday soo rogmato qolana xaggaa u noqonayso qolana halkaa u noqonayso oon iskuul lahayn oo meelaad tegayso suuqa lahayn miyaana dhibkeeda lahayn hooyo dooyo annagu meesha waanu ku dhimanay dawladda waxaanu ka codsanaynaa inay intaa naga samayso guryahayagina qax baanu ka nayba dhanka kale gaadiidleyda mara wadada ayaa iyaguna ka cabanaya xilliyada ay marayaan biyuhu dooxyada xanuuno badan ayaa ka dhasha meeshuna waxay u baahan tahay bridge mudane maayir iyo mudane muuse biixi cabdi waxaan leenahay meeshan waxaa laga qabto waa arkaysaan xaafadda danyarta ee xaafadan isku xidha ilaa masallaha ilaa airportka ilaa iyo meegaagta yarba waa waddada halbowlaha ee laga tallaabo waa halkan majority bridge-ka iminka madaxweyne Silaanya uu xarig ka jaray majority cidma marto xaafadaas uma marta tan dhexna waa laga soo guuray iminka halbowluhu waa halkan hoos loo eego dadkan iyo dadka halkan degan iyo mushkiladda haysata dooxan laga soo bilaabo horta bridge-ka Hargeysa ilaa buuntada yar Carabaydha intaas ma laha bridge intaas meel laga tallaabo dadku iyo gaar meel ka talaamala shalay jimci daraad jimci biyo way soo dhaceen ilaa xalay way soconayeen gawaadhidu way kala xidhnayd dadku ilaan lacag ma wada haystaan dadkii luugan jiray way gadoomeen magaaladu way kala xidhantay koonfurta magaalada Hargeysa ilaa halkaan ku sheegay ilaa bartaas meel laga talaamale magaaladu way kala xidhan tahay dhibaatada weyn ay haysataan waxa weey dooxaas markuu soo rogmado iminka bridge halka laga dhisayaa baa waa arki doontaan oo u tagi doontaan bridge-kaasi iminka waa qabyo waxa laygu yiri lacagtii ma garanaysaa ay ku baxaysay baa ka kala goday oo way ka kala goday dawladdu waxay hayd in deeyle markuu mashruucno yimaado hawsha kala goday inay haday doonto lacagtaba ka sii qaadatay inay hawsha gelisal ka shaqeyso laakiin samay suurta galay imka dooxa yar baa wadada yar baa samaysnay taasina imka way godo dooxi biyihii baa gooyay mas'uuliyiinta dawladda hoose ee magaalada Hargeysa oo isku daynay inaan wax ka weydiino ayaan gabi ahaanba joogin goobihii shaqada Shaafici Sulub Sab TV Hargeysa